بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. maanta waa maalin isniin ah, taariikhdu ay tahay 7 bisha February 2022. halkan waxaa isugu yimid culimadii reer Nairobi iyo rag kale oo marti ah oo dibadaha nooga yimid Soomaaliyeed. saaka waxaan isugu nimid inaan ka tashano oo ka arinsano abaaraha iyo masaa'ibta ku dhacay ama haysta bulshada Soomaaliyeed qayb ka mid ah, iyo inaan baaq jeedino oo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba aan baaq la wadaagno ayaan isugu nimid. sidii caadada noo ahayd ama bulshada Soomaaliyeed meel walba joogaba caado u ahayd, markii ay masaa'ibtu dhacaan oo dhibaatooyinka guud ay deegaamada Soomaalidu degto iyo dalkeeda ay ku dhacaan, in loo gurmado oo loo kala hadhin sidii wax loo gaarsiin lahaa ama musiibadaasi loo fududayn lahaa. Soomaaliya waxaa hadda kor ku dhacay dhulalka ay degto dhan abaaro, meel walba loo soo gurmaday, fatahaada dhacay sidoo kale loo soo gurmaday, qaraxyadii sidoo kale loo gurmaday, duufaanadii baa loo gurmaday. meel walba joogtaba bulshadu waayahan dambe inay iskaashato masaa'ibtaasi wixii laga qaban karo laga qabto ayaa caado ahayd, gaar ahaan dadka horjooga ah ee ummadda horjooga culimada iyo waxgaradka inay hawshaasi isu taagaan. waxaan markaa saaka isugu nimid inaan bulshada Soomaaliyeed iyo muslimka meelaad joogtaanba aan idin soo jeedino baaq ah in wax laga qabto oo loo gurmado dhibaatooyinka abaaruhu ay keeneen, macaluusha iyo dhimashada xoolihii oo dhintay iyo dadkii oo hadda halis ku jira oo ka jirta deegaamada ay degaan shucuubta Soomaaliyeed ee muslimka ah ee dowlad deegaanka muxuu ahaayay ku nool. ayaan jecelahay insha Allah tacaala inaan gurmadkooda idin soo jeedino meelaad joogtaanba, wixii lala gaari kara in lala gaaro. xaalad culus oo aad u adag baa runtii meesha ka jirta, sidaad media kala socotaan, meel walbana aad kaga warhaysaan. waa naf la badbaadiyo, mid halis ku jirta halista muxuu ahaa laga badbaadiyo, xoolihii baaba'ay, dadkiiba hadda halis ku jira oo geeri qarka u saaran. marka waxaan leenahay sida Ilaahay Qur'aanka Kariimka ku sheegay, waman ahyaaha faka'annama ahya an-naasa jamiican. naf bini aadana oo halis ku jirta ruuxii badbaadiyey, isagoo dadkoo dhan badbaadiyey buu la mid yahay buu Alla yidhi tabaaraka wa tacaala. nabiguna sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yidhi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa arrahimuuna yarhamuhum arrahmaan. isu naxariista oo noolaha dhulka ku nool u naxariista, inta naxariisata ayuu Ilaahay u naxariistaa. baaqan waxaan u jeedinaynaa xukuumadaha Soomaaliya ka dhisan iyo kuwa deegaanka ka dhisan iyo mas'uuliyiinta. waxaan u jeedinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed meel ay joogtaba. waxaan u jeedinaynaa qurba joogta iyo dadka dibadaha jira. waxaan u jeedinaynaa culimadiinka gaar ahaan iyo dadka waxgaradka ah, sidii hadda ka horba howlaha noocan loogu istaagi jiray oo looga wada qayb qaadan jiray. tanina kuwii unbay la mid tahay inaynu insha Allah tacaala iska kaashano oo tacaawanu cala albirri wattaqwa, khayrka iyo wanaagga iyo ihsaanka isu kaashada buu Alla yidhi tabaaraka wa tacaala. marka hawshaas gurmadkeeda in runtii meelo badanna waa ka bilaabatay. Kenya meelo badan bay wax ka socdaan, Mareykanka waxbaa ka socda wali, laakiin waxaa la tabayaa muxuu ay Soomaalidii ku nooleed jamhuuriyadda, hadday Muqdisho tahay, hadday tahay Garowe, hadday Hargeysa tahay, hadday muxuu ahaay tahay muxuu ahaay Baydhabo iyo Kismaayo iyo beledweyne iyo deegaamadii loo gurman jiray, culimadii joogtay iyo ganacsatadeedii ayaad moodaa runtii waxa weeye inaan wali arinta aan dareenkeeda la qaadin. marka waxaan leenahay khayr Allah idin siiyo, ha loo soo gurmado dadka walaalihiina hadda ay musiibadu ku habsatay. ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan idin weydiinaynaa wax kasta oo aad ummadda iyo dadka dhibaataysan
dhibaatadooda aad kaga qayb qaadataan fududaynteeda in ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna idinku badbaadiyo idinkuna xifdiyo intaasi waa inta aanu saaka isugu nimid annaguna insha allahu tacaala horeyna waa howlgallay haddana waa wadnaa insha allahu tacaala kadibna wixii suurtogala insha allahu tacaala meelo aamin ah iyo guddiyo aamin ah ayaa gacantooda la gelinaya insha allahu tacaala oo si runtii xifdisan u gaadhsiiya meeshii loogu talagalay iyaduna insha allahu tacaala waa diyaarsan tahay meelihii lagu soo hagaajin lahaa iyo meelihii lagu soo diri lahaana insha allahu tacaala iyadana waa soo sheegi doonaa biidn illahi tabaaraka watacaala aad baad u mahadsantihiin jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayyidina maa bacd akhyaarta dhammaantiin waa idin salaannay akhyaarta culummada ee halkan joogay iyo baaqoodaasi wuxuu nuxurkiisu daaran yahay intii laydiin sheegay dadku waa baaba'ayaan waana baahan yihiin gurmad iyo gargaarna waa inooga baahan yihiin marka fariinta aynu isgaadhsiinno waxaynu heli karaan aan la garab istaagno culimmaduna meel walba ay joogaan iyo deegaanka ay joogaanba ama gudaha deegaanka ha noqdo ama jamhuuriyaddii soomaaliya ilaa jabuuti ha noqoto ama qurbaha iyo jaaliyadaha ha noqdaan waxaan rajaynaynaa in loo wada istaagi doono wax muuqdana laga qaban doono dadka markaynu maanta taakulayno ajirna waa ka helaynaa أهل يحيالنا وإنويهين الله يدين بركايه رجالنا سفي عن لو قيب قادم دونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ولا لها مسلمين تا ميل والبو جوغان وحان إذن لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكدب sida walaalkeen sheekh maxamed cabdi umal uu ka hadlay maalintan aan joogno oo ah taariikhdii hijriga oo sheekhtii miilaadiga oo sheekh sheegay taariikhdii hijriga ahna ay tahay islaamka taariikh 6 bishii 7 1443 waxaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida meel walba ay joogaan ay la socdaan waxaa ka dhacaya gobolka muslimiinta gaar ahaan soomaalida ah oo dhinacaas Itoobiya ay degan yihiin waxa ka dhacayo dhibaatooyina abaara ah xaalad aad u liidata muslimiinta waxay kala socdaan waxa dhacayo iclaanka ay kala socdaan media arrimahaas xanuunkeeda ayaa raggan culimada ah meel walba iskaga keenay qaar Itoobiya ka imaadeen oo meesha ayadeed ka imaadeen baa joogaan oo qayladana qaar waxaa joogaan maaragtay adraafta baladka ka imaadeen annaga oo Nairobi ku kulansan saaki waxaan u jeedinaynaa dadka muslimiinta ah oo Soomaalida si gaar ahaan inay walaalahood u gurmadaan wixii loo qaban karaa ay u qabtaan arrimihii intii uu sheekha hadda ka hadlay xadiidka nabigana waxa weeye sallallahu alayhi wasallam man lam yahtama bi amri almuslimiina falaysa minhum qofka muslimiinta danahooda aan ka murgin kamid ma ahin muslimiinta danahooda waa inaan ka murugnaa dhinac waa muslimiin dhinacna waa walaalaheen oo waa qaraabadeena waa riximkeeni oo waan xariirinaynaa marka garbna way noo yihiin oo waa rixim aan xariirinaynaa waana muslimiin oo way dhibaataysan yihiin dadkaas wax alla waxaan u qaban karna inaan u qabanno xaalaadka maanta dadkii oon bay u ba'ayiin biyihii baa meel laga soo qaata lala-yahay waxaadna ogtihiin nabigeen inuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam nin inuu u imaaday ey ooman oo oon u dhimanaya ceel inuu galay eygii iyo oonkiisii dhibaatada haysa intuu arkay ayuu ceel galay oo qofkiisa uu biyo ku soo qaaday eygii buu waraabiyey oonkuu dhimanhayay eynkii waa noolaaday eyga hadduu noolaaday tii ideed ficilkii uu sameeyey darteed buu ilaahay janno ku geeyey eygii maxaad u malaynaysaa ninkii iyuu ilaahay janno ku geeyey ninkii eyga waraabiyuu ilaahay janno geeyey wuxuuna ku geeyey ficilkaas yar maxaad u malaynaysaa qof muslima oo dhibaataysan caruur yar haween dad xaaladooda meel un adag ay maraysa in maanta aas galaas biyo waraabis booyad loo dhaamaya inaas maaragtay wax ku darsata waxaa weeye dad badan baa inay janno ku galaan laga yaabaa hadday niyadooda wanaagsanaato oo ilaahay dartiisa ay ula baxaan dad badan baa janno ku galayiin waxaan leenahay walaalaha muslimiinta
wax badan oo jannada waa loo tartamaa marka inaan u tartanno arrintaas ayada oo waxiin la qaban karna walaalaheen aan la qabanna oon janno ku raadsanna oon garabkeenni aan xiriirna ayaan u baahannahay allahana idin barakeeya waxa weeye aan tabarucna gabdhaheenna waxay bixin karaan ha bixiyeena ilmaheenna iskuullada dhiganayeen 500 kun shilin waxay ku soo dari karaan ha ku soo dareena siyaasiyiinteenna iyo madaxdeenna ha u istaageena inay dadka walaalood u gurmadaan dadka ha u kulmiyeena beec mushtarkeena ha u dhaqaaqeena arrinta ayada ha u gurmadeena culimadeenna way soo xil saareen arrintii way u taagan yihiin allah idin garab gala khayr badan ilaahay baan idinkaga baryaynaa ilaahayna tawfiiqaana siiya waxaan u jeedinaynaa walaalaha annaga oo gobolka dhibaatada badan ay hayso bini aadan waxay idin keenaan waxba idin ma qaban karaan bini aadan si kasta u gurmadaan waxba idin ma qaban karaan wax idin qaban karaan waa yar tahay ilaahay barya subxaanahu wa tacaala meel walba oo joogtaan iyo tuulo walba isku daya dadka culamada ah oo dadka fara in alla barya iyo istisqaa iyo roobdoon la sameeya dadka barya dadka fara ilaahayna baryada waa ajiiba weliba markay xaaladda liidataa ugu sii daran tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala roobdoonkaas waa in kula jurnaa ilaahayna waa in la baryaynaa ilaahay cirka roob barakaysan ha nooga keena waqtigan kulul oo la jooga marka intaas ayaan idin soo jeedinaynaa وبهذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. runtii fariinta culimmadu saaka ay isugu yimaadeen magaalada Nairobi waa fariin qaylo dhaan ah oo loogu dirayo baaq dadweynaha Soomaaliyeed muslimka meel kastoo ay dunida daafeeda ka joogaan ha joogaan Mareykanka Australia Yurub Soomaaliya meelaha ay muslimiinta Soomaaliyeed joogaan oo dhan yaan rabnaa in ay baaqa culimada ay horkacayaan Sheekh Umal iyo Sheekh Maxamed Cali Sow iyo dhammaan culimada saaka halkan isugu timi runtii waxaa xanuujisay culimada fariin ka timi walaalo mashaayikha culumaa oo indhahooda ku soo arkay dhibaatada ka taagan dowlad deegaanka Soomaalida waxaan aad u xoojinayaa arrinta baaqa ay culimadu dirayaan ee lagu gurmanayo walaalaheen Soomaaliyeed in loo dhagalugnaado oo hadday noqon lahayd madax siyaasiyiin Soomaalida oo dhan guud ahaan meel ay joogaan bayn arrinta la isu xil saaro oo ay culimadu hormuud ka noqdaan maxaa yeelay naf baa la badbaadinaya sida ay culimadu sheegeen in walaalaha duunyadii baa dhamaatay dadkii baa ku xiga in marka arrinta loo dhagaluglaadaan xoojinaya baaqa culimadan aan ku kabaya wajazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني علماء باق ويسوج جديين أن إن شاء الله وكذب جينيا والجور هي كل دتك أنت وضبضن معلوش أنا دكجرته ديجانك هذا للتلمامي شحوبته الدجين الصومالي ذي توبيا waa laga warhayaa inkastoo abaaruhu ay meel kasta jiraan ka jiraan oo Kenya ka jiraan oo Soomaaliya qayb ka mid ah dhankan geeda ka jiraan kuwaas ugu daran roob mayna helin kuwan waxay yaray heleen meelaha qaar laakiin xagga ugu daran xoolihii way dhamaadeen dadkiina kuwii tuulooyinka degana kulli way ka soo hayaameen hadda qaxooti bay yihiin oo teendooyin baa loo dhisay aad iyo aad bay macluusho ay u weyn tahay marka muslimiintaas waa inaan badbaadinaa waa eheladeenna waa qaraabadeenna sadaqada la siinayo qaraabada waa laba ajir baa laga helayaa sadaqatun wasila wey marka aan ka warhayno Nairobi dadka degan iyo dibadaha dadka degan iyo Soomaaliya meel kasta culimada waa inay istaagaan baaqeen hadduu mar soo gaaro waa inay istaagaan waxay kari karaan walaalahoodaas dhibaataysan inay ku garab joogsadaan oo insha Allah iyagana mucaawanada qayb ka qaataan dad badan baa dhirgan oo hadda magaalooyin ku nool laakiin kuwaas biyo ay ka badaan ay leeyihiin marka jazaakumullahu khayran baaqana ku biirinaya aan wada istaagno dhamaanteena nimba karaankiisa iyo wuxuu heli karo jazaakumullahu khayran wa billahi tawfiiq.